baasaboorka Soomaaliga ayaa dhawaan waxa viisa la'aan lagu tagi doonaa 7 dal oo ka mid ah bariga iyo bartamaha Afrika kuwaas ay ku nool yihiin Soomaali aad u badan. Soomaalida waa dadweynaha ugu badan ee u kala safra dalalka bariga Afrika sababo la xiriira ganacsi, shaqooyin iyo nolosha kale ee caadiga ah. Waxa ayna si joogto ah uga kulmaan caqabado badan oo ay ka mid tahay sharciga wadamadaas iyo baasaboorka Soomaaliga waan xooganayn. Si ay ugu fududaato isku socodka dalalkaas, waxa ay ku khasbanayeen inay lacag aad u badan ku bixiyaan helista baasaboor ajnabi ah sida baasaboorka Kenyaatiga, midka Ethiopia, kan Djiboutiyaanka iyo baasaboorada kale ee caalamka. Haatan Soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay ku biirto dalada bulshada bariga Afrika oo ah urur goboleed ay ku midaysan yihiin 7 dal oo dhaca bariga iyo bartamaha Afrika kuwaas oo kale ah Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, South Sudan iyo Koongada Dimuqraadiga oo ah dalkii ugu dambeeyay ee ku biiray ururka. Daladan waxa ay u tahay in ka badan 280 milyan oo qof waxayna ku fadhisaa baaxadiisa uu leeyahay 4.8 bilyan kiiloomitir square waxaana xarun u ah magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Soomaaliya waxay codsatay xubinimada daladan sanadkii 2012 mar kale ayay codsatay sanadkii 2016 balse isku dayadaas ayaan guuleysan sababo la xiriira duruufaha amniga dalka kan jiray iyo dawladnimada oo aan saldhigan. kadib dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Juulaay 2022 ayuu madaxweynuhu khudbad uu ka jeediyay shir madaxeedka bulshada bariga Afrika waxa uu si rasmi ah gol ugu codsaday inay Soomaaliya xubin ka noqoto daladan. I would like to thank you very much for giving me this opportunity to come among you today and share with you our long-term will to join the community, this great community. Soomaaliya waxay ka gudubtay habraacidii iyo shuruudihii xubinimada waxaana dhawaan la filayaa inay soo gabagabowdo xaqiijintii ugu dambeysay oo ay ugu mid noqon lahayd daladan. Haddaba waa maxay fursadaha Soomaaliya ugu jira ka mid noqoshada daladan? Iskaashiga amniga. Soomaaliya muddo badan waxay la daalaa-dhacaysaa dhibaatooyin ammaan oo daba dheeraaday. Biiritaankeeda daladan ayaana la filayaa inay ka hesho iskaashi dhanka ammaanka ah maadaama dalalka ku boobay daladan ay isdhaafsadaan xogaha amniga gobolka. 2. Suuq ganacsi oo weyn. Soomaali badan ayaa ganacsiyo kala duwan ku leh dalalka bariga iyo bartamaha Afrika. Tani ayaana ka dhigan inay heli doonaan xuquuq shaqo iyo ganacsi oo la mid ah muwaadiniinta dalalkaas. Sidoo kale, suuq weyn ayay Soomaalida gudaha dalka ku nool ka heli doonaan dalalka kaas oo ay u iibgeeyaan wax soo saarka dalka iyagoo heli doona canshuur dhaaf. 3. Isku socodka. Baasaboorka Soomaaliga ee haatan midabkiisa ee buluug maariga ayaa isku bedeli doona midabka buluug calanka kaas oo ay ka midaysan yihiin dhammaan baasaboorada dalalka bulshada bariga Afrika. waxa uu fududeyn doonaa in fiisa la'aan lagu tago 7 dal ee xubinta ka ah daladan. Soomaaliya ayaa dhankeeda la rajaynayaa inay gobolka ugu faa'iideyso xeeb dadkeedu uu yahay 3,333 kiiloomitir oo ay maraan marino ganacsi oo caalami ah lehna dekado waaweyn oo isku xira dalalka Carabta iyo guud ahaan caalamka iyo sidoo kale maskaxda ganacsiga hal abuur ee 16 milyan oo qof oo muwaadiniinteeda ah. haddaba ku biirista Soomaaliya ee daladan qayb ma ka qaadan doontaa kobaca dhaqaalaha iyo ammaanka dalkeena? Aragtidaada nala wadaag.